ودكتوركي أبو بكر محمد بن يحيى بن سكرية الرازي وحنا وها عالمكي رير فارس حديق نمديسو ساميسي دمان دينعيدي علميغا وحنا وكمدها دخاترتي هو ويناء الدنيا الصومرة وحنا واللي بوغيسي وغو مقعدري الحاوي oo ku soo ururiyay guud ahaan aqoontii caafimaad ee la dahaqaaday tan iyo cahdigii Iqriiqiyiinta ilaa iyo sanadkii 920 taariikhda miilaadiga waxaana uu muddo 400 sanadooda ahaa nustambeedka caafimaad ee ugu weyn ee ay qaaradda Yurub dib ugu noqonayeen markay mas'ale caafimaad xalinayaan inta kadibna caalamkani waxa uu bartay aqoonta xisaabaadka falsafada xidigiska kimistriga fanka iyo culumta sharciga دكتور راسي وحاو عن قروبي سيدا حدقها وكله وحانا ومعمولة كنوضي اسبتال بلاران وحانا أولها فرما بلدن أو كسابسن سببها دليا عذرada وحانا وقالن كيسولتي أو دحال كريبي أرagti kasta oo caafimaad oo xilligaas la helay kuwaasoo Gordon bay u sii turjumay xarfaha Laatinka muddo dheerna buugaagtiisu waxay sii ahaayeen meesha dib looga eego masalooyinka caafimaad ilaa iyo qarnigii 17aad waxaana buugaagtii uu qoray ka mid ahaa buugga la yiraahdo taariikhda daaweynta ee buugga kale ee loogu magacdaray Al-Mansuur oo caafimaadka ka hadlayay iyo buugga kale ee uu sida faahfaahsan ugu sharaxay qaab dhismeedka xubnaha jirka bani'aadamka دكتور الراسي وحاو ها دكتوركي ugu horeeyay ee hal abuuray dunta lagu too dadka qalliinka lagu sameeyo waxaana uu lahaa alfaadi hababkii caafimaad ee gacanta ka geystay horumarinta cilmiga kiniinka waxaana uu qoray ilaa 200 oo buugaag iyo maqaale isugu jiray oo ka hadlayay dhinacyada kala duwan ee culumta inkastoo ay halka yihiin fikrado iska hor imanaya oo ku saabsan noloshii Dr. Abu Bakr al-Rasi adana dadka badankiisu waxay rumaysan yihiin inuu ku dhashay magaalada Ray oo ah duleedka magaalada casriga ee Tehran isagoo dhashay sanadkii 250 taariikhda hijriyada fikradihiisana waxa kamid ahaa inay ardayda ku nool magaalooyinka dadka badan ay bartaan farsamada daaweynta maadaama ay tirada dadweynaha caalamku kor u sii kacaysay dhaqaatiirtii xirfadda lahaana ay sii yaraanayeen waxaana uu dhalinyaranimadiisii muddo ku qaatay magaalada Salaama ee dalka Ciraaq halkaas oo wax ka bartay dugsi caafimaad oo ku yaalay magaalada Baghdad isagoo dabeeto markii uu dhamaystay waxbarashadiisii dib ugu laabtay magaalada Ray kadib codsi ka yimi xaakimkii magaaladaasi Mansuur bin Isxaaq oo doonayay in Dr. Rasi uu qabto maamulka caafimaad ee magaaladaasi waana xilligii waalifay buugga caafimaad ee uu xaakimkaas ugu magacdaray ee ahaa Al-Mansuur fi Dhib kaasoo ka hadlayay cudurrada jirka iyo buuggiisii kale ee caafimaad ee daaweynta ruuxaaniga oo ka hadlayay cudurrada nafsaaniga Dr. Rasi waxa uu dib ugu soo noqday magaalada Baghdad halkaas oo madax ka noqday xarun cusub oo caafimaad oo uu halka ka hirgeliyay khaliifkii Al-Mu'tadi billah muddo dheer oo caafimaadka iyo hawlihiisa ka soo adeegayay ka bacdi waxa xanuun ka haleelay indhaha muddo ka bacdina waxa uu waayay nimcadii aragga waxaana uu sanadkii 313 taariikhda hijriyada ku dhintay magaaladii uu ku dhashay buuggiisii siiradii falsafada oo doctorku qoray ayaa inaga filaa inaynu ka dheehano hanaankii nololeed ee Abu Bakr iyadoo cahdigiisii ay dhaqaatiirtu ahaayeen filosofiyiin falsafaduna ay ahayd miisaanka la isugu keenayay lagu sameeyay ama loogu mideynayay aragtiyadii cilmi ay soo qorayeen dhaqaatiirtii xilliyadii hore ee taariikhdu Dr. Rasi waxa uu si weyn u rumaysnaa in la sii wado horumarinta baaritaanada caafimaad isagoo rumaysnaa in horumarin noocaas oo timaada ay tahay mid lagu heli karayo in la barto aqoontii caafimaad ee ay dhaqaatiirtii hore reebeen waxaana jirtay in dhakhtarku wax ka qoray culumta fiisigiska gaar ahaan qiyaasta miisaanka waxyaabaha dareerayaasha halka sidoo kalena uu maadooyinka kiimikada u kala saaray 4 nooc oo kala duwan kuwaas oo mid walba u sii qaybiyay qaybo kale waxaana uu ahaa dhakhtarkii sii faahfaahiyay qaybaha macaadinta isagoo tusaalahan qaabkii uu diyaarin jiray macdanta dhanaan kale ilaa maantadan loo diyaariyo buugaagtii dhanka caafimaadka iyo daaweynta ee uu dhaxalka uga tagay Dr. Abu Bakr al-Rasi waxa lagu turjumay luqado badan oo qaaradda Yurub laga hadlo iyadoo jaamacadaha dalalka qaarkoodna lagu dhigan jiray tan iyo dhamaadkii qarnigii 17aad waxaana uu ahaa mid kamid ah dhaqaatiirtii waaweyneed ee dunida soo maray oo dhaxalna waxa uu ahaa ilbaxnimadii islaamka ee dunida wax bartay